بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bulshada Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada kulliyadda caafimaadka ee Mama Amina Health Science College kulliyadda caafimaadka ee Mama Amina Health Science College waxaa la aasaasay 2019 waqtigaas oo ay qaadatay magaca Hakama Health Science Institute kadib 2021 ayaan dib u habeyn ku sameynay kulliyadda oo magaca laga bedelay kadib sidoo kale la soo kordhiyay syllabuskeeda wax badan laga bedelay oo lagu soo kordhiyay qaybta waxbarashada ee practical roomska ama demonstration roomska qolalka ardayda lagu tusa cilmiga si physically si ay wax badan uga fahmaan kulliyadda Mama Amina Health Science College waxay ku taalaa gobolka Banaadir iyo gobolka Shabeellaha Hoose gobolka Banaadir waxay ku taalaa degmada Darkeenley agagaarka Suuq Bocle degmada Hodanna waxay kaga taalaa xaafadda Taleex gaar ahaan agagaarka Cabdiqaasin kasoo horjeedka Jaamacadda Muqdisho kulliyadda waxbarashada caafimaadka ee Mama Amina Health Science College waxay bixisaa dibloomooyin iskugu jira dibloomooyin sare oo high diploma ah iyo dibloomooyin regular ah oo ardayga hadduu barto uu ku shaqaysan karo kana faa'iideysan karo xaafadda degmada gobolka Shabeellaha Hoose waxaan xarun ku leenahay degmada Afgooye gaar ahaan xaafadda Waanjeele oo qof kasta oo area halkaas ka dhow u soo doonan karo adeega waxbarashada cilmiga caafimaadka kulliyadda caafimaadka ee Mama Amina College dibloomooyinka sare ay bixiso waxaa kamid ah diploma of nursing ardayga markuu barto kulliyadda caafimaadka ka barto diblomada nursingka wuxuu ku darsan karaa intensive months oo la siinayo koorso adag oo uu ku noqonayo mutakhasis ku noqonayo cilmiga caafimaadka gaar ahaan diblomada nursingka oo wax badan uu ka fahmayo u sahlaysanay inuu ku shaqeeyo kulliyaddu waxay calaaqa dhow ama xiriir dhow la leedahay cusbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Mama Amina Maternity and Child Hospital iyo isbitaallo kale oo maaragtay general hospitals oo waaweyn oo magaalada Muqdisho ku yaala iyo isbitaalka weyn ee degmada Afgooye General Hospital ardaygu marka uu barto cilmiga caafimaadka wuxuu practical dheeri ah uu kusii qaadan karaa cusbitaallada iyadoo aan u diyaarinay xarumaha anagana ay ku yaalaan demonstration rooms full acquired ah oo maaragtay u dhamaystiran ardayga uu ka heli karo practical nooc kasta ah kulliyadda diblomooyinka ay bixiso waxaa kamid ah diblomada nursingka diblomada midwiferyga oo maaragtay midwiferyga 1 sano ah iyo diblomada sare nursingka oo 2 sano ah diblomada nutritionka oo 6 bilood ah diploma of medical laboratory oo maxaa la yiraahdaa 1 sano ah iyo diploma of pharmacology oo diploma of public health oo maaragtay 1 sano ah diploma of basic health oo 12 book of Soomaali ku turjuman lagu baranayo oo 1 sano ah iyo diploma of ultrasound oo ardaygu uu ku baranayo cilmiga la xiriira ultrasoundka oo iyadana 3 bilood ah marka kusoo dhawaada Mama Amina Health Science meel kasta joogtaan gacmo furan kusoo dhawaada dhinaca waxbarashada annaga waxaan leenahay practical rooms ama demonstration rooms aan leenahay ardayga laba dhinac ayuu ku qaataa waxbarashada practicalka ah qayb wuxuu ku qaataa college gudihiisa oo qolka loogu talagalay qalabka uu yaala ayuu ku qaataa practice ku qaataa si fiican ugu fahmaa oo theoryga marka laga imaado classka uu ka imaado wuxuu toos u galaa qolkii loogu talagalay inuu daraasada theoryga ahayd ee la soo baray oo ku practicareeyo qaybta labaadna waxaan geynaa xarumaha caafimaadka oo isbitaallada hadda aan sheegay ay ka yihiin iyo MCHO iyo maaragtay goobo primary health centers ah oo aan la leenahay xiriir fiican oo ku yaala goobahan ka shaqeyno oo dhan marka wax lacagna lagama qaado ardayga anaga nala jooga oo maaragtay practice oo dhan waa free wax in charge ah oo maaragtay laga qaado ma jiro oo dheeri ka ah school feegiisa ama lacagtu ku barto waxbarashada thank you